biya magacyo aan waan aqoon baa meeshan waxa weeye lagu qarinaya qadiyad weyn oo runtii waxa ka weyn meeshan waxa ka dhacay mas'uuliyad darro taariikhi ah baa ka dhacday waxaan jacayl ma aha nacaybna ma aha reerahan iyo waxa meelahaas ku qasaysaana ka daayaan leenna ma aha waxaan wixii social media runtii waxa way ka duwanta mas'uuliyad darro weyn baa dhacday taariikhday gelaysaa aniga oo maanta nool wiilkiisa baa xusi doona taageero dawladeed iyo mucaaradna bahashu ma aha waxaynu ka hadlaynaa qadiyad ka weyn oo 200 oo sano jirtay oo kumanaan kun oo qof naftooda u waayeen kuwa kalena diyaar u yihiin maalinka maanta iyo 100 sano soo socda iyo inta adduunku nool yahay gobolkan Soomaali galbeed saad ugu ciyaaraysaan qadiyadiisa way ka duwan tahay saad moodeen ma waxaan runtii 10 fiican idin siiyay oo odaytinimo oo xogaalnimo cabsaaq xaaji nuure wax badan ba ku darsan maayo laakiin kaliya waxaan ku soo koobayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre inuu u bareeray iyo in la meesha tag oo lagu khasbay ma ogi laakiin si ay noqotaba ummadda Soomaaliyeed wuxuu ka galay khalad taariikhi ah dambi weyn buu ka galay gaar ahaan Soomaali galbeed dambi weyn buu ka galay xasan sheekh maxamuud xilligiisii koobaad baanu xasuusanaa wixii ka dhacay markuu jijiga tagay ee ku tilmaamay xaq dirarkii geesiyaashii dadkii naftooda iyo maalkooda iyo ubadkoodiiba u huray qadiyadan uu yiri waxa weeye ubbo iyo ufo iyo wax noocaas ugu yeeray anigu ma garanayo iyo yani waa argaxiso I hope inuusan hadda oo naf waxa weeye malaha hadda hubkii ma sidataa la leeyahayo waxaan u malayaa hadda carab ku balaarin maaya oo u malayn maaya Xamse Cabdi Barre inuu oran doono kelimada noocaas laakiin kama duwanatii xasan sheekh maxamuud uu sameeyo kale waxyaabaha la yaab kale waxa weeye dadka Soomaaliyeed damiirkii miyuu ka dhinta xagee bay ka fekeraa ma maantaad ka fekeraysaa iyo kursiga qofka fadhiya waxay waxaad ku hadlaysaan oo meesha la imaanaysaan miyadan xishoonayn oo damiir lahayn meeshan waxaa ka dhacay khalad taariikhiya wax la aqbali kara maaha weliba aniga oo kale oo laftigaygu ka mid ah halgamayaashii oo nafo waxa weeye naf iyo maalba u soo huray deegaanka isla markaana ahba Soomaalida ka soo jeeda doollo akhyaaray waxaan isku qasaan ka daaya meeshan dambi baa la galay taariikhiya waxa weeye runtii la xasuusan doono oo aan la ilaawi doonin oo buugta taariikhda geli doona ninka waxa sameeyay hadduu shacab ahaan lahaa cid waxba ma aragteen hadduu qof caadi oo waxa weeye soconaya ahaan lahaa ganacsada ah waa caadi oo ummadda Soomaaliyeed xuduuda ma kala laha kuwan isticmaalku u dhigay inama kala celiyaan oo maanta Hargeysa intaad ka dhaqaaqdo baaski jiga caawa ka cashaynaysa adoo shacab sidoo kale xamar intaad ka tagto ama Kismaayo baaski jiga tagaysaa ama Gaarisa taasi waa wax caadi ah laakiin mas'uul prime minister ama madaxweyne Soomaaliyeed oo jamhuuriyadda xorta ah lambar 7 inta lambar 7 ah inuu jiga tago oo ka dhaanteeyo waa waxa axmaaradu doonaysay waa waxa axmaaradu ay in badan ku taamaysay haddii xilligii TPLF lahaa TPLF baa ku cadaysay xasan sheekh maxamuud inuu tago jigo ka dhaanteeyo isla markaan oo naf ku sheegay argaxiso maanta ma TPLF baa joogta mise gabra jooga maanta maxaa lagu gabanayaa yaa Ethiopian si kala daadanaysa kala socota iyadii cunayso intay isbeysyada qabsato genocide iyo xasuuq isku haysa oo aad moodo inay si aan ka soo noqosho lahayn u burburi doonto marka laga yimaado dhalanteedka ay waxay meelaha la yimaado maanta yaa ku khasbay Xamse Cabdi Barre yaa ku khasbay waa su'aal meesha taagan weey mayga way idin soo celiyay waa mahadsantiin DCG waxa weeye muxuu ahaa farxiya qadiyadana saad moodaysaan waa ka weyn tahay runtii waxana waa wax record galaya xitaa codkiina halkan ka baxaya hamoodina codkiina inuu meel aadayo kumanaanka sana soo socda waxa uu ku jiraa social media iyo meel kasta waa la kaydinaya hadalka hadda aan ku hadlayo meel kasta laga daawan doona wiilkayga wiilkiisa dhageysan doona
wartaariikhda meel مختار ولكن هل سؤال بان في تاجر ku soco walaal ku soco سند مختار يا كسر عمو هذا سؤال ويديس محمد سيال باكو حيقة بان ما يا سومالي نمدي مكتج هدو تجيجة تجي معناها مدح رئيس الوزراء walaal waxaan aad isku khaldaysaa waxaas oo wixii 2 saacadood aad dhageysanayay weey ra'iisul wasaaruhu waa nin Soomaaliya aabihii waa Soomaali hooyadii waa Soomaaliyad carruurtiisu waa Soomaali waa sababta uu ku noqday kuraastii ugu sareysay waddanka mid ka mid ah waxa weeye uu ku noqday weey ma noqon lahaa nin xamaar ama TPLF prime ministerka Soomaaliya no way waa nin Soomaali laakiin mas'uuliyad baa saaran mas'uuliyad culus baa saaran oo ka weyn waxa weeye mararka qaarkood ay idinka maqlayeen qaarkiin intiina badan maaha qaarkiin mukhtaar waxaan lahaa wax yar ku soco waxa weeye ku soco walaal xabsan gabadhu waxay tiri Soomaalinimada ma laga saaraya farxiyo walaal Soomaalinimada lagama saarayo Soomaalinimada kama baxay waxa laga hadlayaa taas ma waxa laga hadlayaa waa qadiyad umadeed kuwa Itoobiya u shaqeeya Shire iyo Aadan Faarax iyo Mustafa iyo adeegayaasha Itoobiya waa Soomaali cidna Soomaalinimadu waa u dhalasha cidna la iskama saaro laakiin waxa laga hadlayaa waa qadiyad umadeed iyo wixii la aaminsanaa Mustafa qudisa baa u faysaa walaal aan kugu daray waa madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ee hadeen daba dhelif ma aqaano hada waxa uu taqaano waa adigay ku jirtaa laakiin waxa reality aan laga hadlaynaa Mustafa adiguna ma dooran aniguna ma dooran dadkuna ma is dooranne abiya keenay oo xilka u dhiibtay oo uu adeega Itoobiya u adeega cid wax isbedelayana taasi ma aha nin kasta oo aan cod shacab ku imaanin oo halka joogo oo Itoobiya keensatay waa adeega Itoobiya shacabkii masaakiinta Suudiga taagnaa in waxa weeye codkoodii waxba aan laga soo qaadin aad baan uga xumahay يا والله ما سنتي ناجي محمد سيال وعديك the Naji the Queen and then Abdurrahman gifted back to Yusuf. Habamuno, if you want to speak you can raise your hand or you can jump in if you want. Earlier one got okay, but like in what it محمد سيال كسر وأنا سلام يا دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامة الإسلام كان كل سلام يا waxaa qoran baan meesha u malaynaya inkastoo dib aan looga soo biiray iyadoo la isku jabay ra'iisul wasaaraha oo jooga jigjiga ma waxa uu u tagay arrimo siyaasadeed dee jigjiga uma tagi karo arrimo siyaasadeed sida sharciga ah waayo dhulku waa dhul Soomaaliyeed oo gumaystaana bixiyey xoog baana lagu haystay kumanaan halgamaa baana u soo halgamay dhulka sida ay u xoreeyaan marka wuxuu ka been sheegayaa ra'iisul wasaaruhu kumanaankii u soo halgamo dhiigoodii u huray iyo maanta asoo ka been sheegayaa hadii uu tago waayo waa dhul Soomaaliyeed oo adu laga haysto xaqna uma lihid adigoo mas'uuliyad umadeed xambaarsan in aad tagto gobol adi laga haysto ama qayb mandaqad laga haysto kala dawlad deegaan okay taas halka baan uga gudbayaa ra'iisul wasaaruhu ma mudan yahay in uu maanta jigjiga tago asoo qof caadi ah taana laftirkeeda meeshu inay ka marnayn baan anigu u malaynayaa waayo waxa laga yaabaa in uu degan yahay inay dadka degan yihiin in uu aabihiiba ama uu adigu ay dadka Soomaaliyeed dhamaantood way isla wada dhasheen waa danab isku xiran xag iyo xagaba sidaa macquul ma u tahay in uu u booqan karo waa may laakiin markuu xasaanada wareejiyo dalka ama waqtigiisii uu leedo 4 sano ay dhamaato ra'iisul wasaaruhu sida uu ka dhamaado mandatekiisa uu booqan karaa oo ra'iisul wasaaruhu uma Soomaaliyeed si toos ah asagoo qof Soomaali u booqan karaa laakiin maanta ma mudnayn in uu tago waayo هزيمة النفس waxay ku tahay ninka aabihii uu dhiigiisa u huray in uu xoreeyo Soomaali galbeed in uu xoreeyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed oo intaad aragtay halganka dheer ku jirtay oo magacyo fara badan run ahaantii uu mid aduuba uu u bixinayay oo lahaa kaas waa jabhad hebel kaas waa jabhad hebel masa ahayna waxay ahaayeen halgamaa Soomaaliyeed u halgamay ilaa 1800 iyo santii 65 ilaa iyo kasii hore u soo dirirayay in ay maalin xorowda Soomaali galbeed oo san dhul kale aysan ayadu ku beerin joosna uma lahaan u malaynaya ummadda Soomaali galbeed ku nool
in ay ka mid ahaadaan Ethiopian ama dowladdaas Ethiopia marka ra'iisul wasaaruhu uma tegi karo marka arrimo siyaasadeed anuu sidaasan qabaa ciddii dood ka qabtana ayaduna dee hadday rabto waa un kolley waa nagala doodi kartaa annaguna waxa aan qabnaan ka dhahayna sida ayagu dadka ay qabaan uma dhahayno marka waa idin soo celiyey DCG aad baa u mahadsan tahay iyo Umu Maxamed labadiina aad baa mahadsanin Maxamed Soyaal. Just one request, please. Haddaad hadasheen hoos haddaad u degi karaysaan, I can't bring up no one else. Naji Kusa, and then after that we're gonna go to Abdurrahman Gifted has waited a long time. Naji. adu line-ka mar kasta maad bedelaysaa DCG marba meel baad ugu daraysaa. Sorry, Queen, because you haven't got your hand raised. I can only see people who got their hands raised. Anyway, dib male horta walaalkii Cabdirasaaq aan rabaa inaa doodiisii aan challenge yani wax ka iraahdo Cabdirasaaq horta waa ku salaamay horta kililka naaji oo si fiican u hadal laguma maqlo caadi lama maqlo hello dhagaha iska saar dhagaad ku hadlaysaa waan malayn waa iska saarayba caadi inaan u hadlayo malaynaa hadda caadi soo lama maqlo ha ku soo okay waxaan rabaa inaan wax ka iraahdo doodda Cabdirasaaq ay ahayd yani kililka shanaad iyo taariikhdeeda iyo sida ay yani Ethiopia baarta uga noqotay dagaalkii waa mataqaanaa Ethiopia Talyaaniga uu dhaxmaray Talyaaniga lagu soo jibiyay waxa 18 ay raahday 1896 Talyaaniga dhulka qabsaday haddaad oraahday caan baxday kililka caanka ka ahayd yani intii xitaa odayaasha markay dadka deegaanka yiri ma Italia rabtaan inuu idin sii hayo mase Ethiopia rabtaan inaad ka mid noqotaan dadka kililka dago waxay doorteen Ethiopia marka ay doorteen odayaashii wali baro wax yar naaji oo saaxib Cabdirasaaq wax yar saaxib kelmadaas dadku waxay doorteen Ethiopia wax ka jira ma jiro walaalay 1954 Hodan Reserve area was added by force but like Ogaadenia 46 odayaasha Ogaadenia ayaa doortay 46 Okay, guys, please. Naji has the floor. And after that, Ahmed, please, everybody just raise your hand so I can see that. Naji, after you, Naji, it will be Yusuf Grad, then Queen, then Ahmed, and then Gifted. Gifted, I'm sorry. I know you waited for a long time, but you've spoken. I'm just giving chance to people who haven't spoken. Naji, continue, please. taariikhda marka laga hadlayo is not sweet. Ma aan taariikhdu yani taariikhdu waa midabo badan tahay. meelo badan oo aad adagna waa istaagaysaa marka ma ahan inaad taariikhda marka maqasho soo bood aniga I can challenge you ayadoo documentary oo ku soo diri karaa faylashi heshiisyadii la galay dadkii xitaa meesha jooga on the record BBC da ku jirta la lahaa waliba intuu ninka odayga ah u soo qaaday marada cad saaray geedka uu lahaa geedkan mataqaana qodaxaha badan intii la saaray lahaaniyo axmaara kama dhax bixi karne ninkan biri uu iska tagi doonaa ninkan ku biirno aan Talyaaniga ahana aan qaadano laakiin ninkan ciidan sooma soo safrin meel fogna kama imaanine Ethiopia day odayaashii deegaanka xilliga jooga waxay doorteen inay horta Ethiopia ka mid noqdaan oo Ethiopia markaas waliba together Ethiopia iyo mataqaana ninkii xilliga Ethiopia ka talinay oo wada socdo labadoodii waxay mataqaana la dagaalamay Talyaaniga sidaas loo soo adkaaday and the macna history book waaye oo wax oo naaji uu sameeyay waxa adigu sameeyay maahan laakiin waxa isku raacsanahay oo aniga iyo adiga ka mideysanahay maanta waxaan ka mideysanahay in dhulkaas Ethiopia maanta dadka degan ee kililka degan inay saraali ka ahayn ee xoog lagu haysto arta macnaha I have zero doubt kaamadiidani waa kugu raacsanahay laakiin taariikhda ma ahan in inta ciidan ku soo duulay xoog lagu qabsaday Ethiopia that was by Joyce kooday ku doorteen laakiin dib dambe waa kala xumaatay oo maanta xaalkii waa halaabay I agree with you